ugu dambayntiina bal haddaan eegno arrin aad iyo aad uga duwan dhammaanba arrimahaasi aynu ka soo hadalnay bal hadda waxaad qiyaastaa lamaane isjecel oo dabadeedna nasiib isu yeelan waayey oo mid ka midi uu tahriibay kii kalena uu ka daba tahriibay dabadeedna markii dambe tahriibtii intay iska dhaafeen waddankooda ku soo noqday oo weliba ku tanaaday aan idinku wareejiyo caydaruus cabdilaahi beershiya راتي حجي دحي جعيلكاغو وبين markuu kalmada dhageystay masiri u dhawee jacaylka walaal heestan waa hees xusuus gaaray gule adigoo raalliya maadaama in nafteeda khusayso waan bedelina laakiin ha yar dhamaata raalli hawintaana bal maxamuud oo ku magac dheer maxamuud boodhari oo ku nool magaalada Hargeysa intii aan saarnaa gaadhigiisan taksiga ah ee gaarsiinay goobta aan doonayay wixii iga sheekeeyay sheekada uu sheegay inay ku jirto qisa xanuun badan oo heestan aynu ka dhageysanaynay ku saabsan bal jacaylka taariikhdiisii halkuu ku dambeeyay iyo waxyaabihii dhacay intii uu socday aynu wada eegi doonaa waxa idin kala baxaya maxamuud boodhari iyo sheekada aniga jacaylka waxba ka aqoonin ayaa waxaan isbaranay inaan maalin sikadiisa waliba isku baranay adigu markii aan isbaranay muddo 2 sano ayaan wada sheekaysanay ayaa waxa dhacday inantii in reerkoodii loo soo doonto ayaa waxa dhacday inantii in iyadoo shandadeedii sidata ay ii timi igu tiri maxamuud oo walaal waxa jirta arrin reerkaygu damacsay berri toolana waxa loogu talagalay aniga in nin la isiyo la inama heriyo marka fursadda kaliya haysta waxa weeye caawa inaan isla baxsano ama wixii aad ka talinayso aad ka taliso wallahi marka way adduunku iska dhibadan yahay inantii waan ku celiyo wax ku walaalmaye ma sameyn kara arinta aduna iskaga noqo inantii way cadaatay waxaan igu jawaabtay waxaad wiligaaba been badi sheegi jirtay ma jeclayn sidiina waan ku kala tagnay markaas anigana xanuunkii jacaylka ugu darnaa halkaas iga bilaabmay inan telefoonkayga ma qaban jirin message baan u dirshay ma jawaabi jirin triish baan soo qaaday dhiig baan iskaga qaaday warqad baan ku qoray waxaan u geeyay waxaan dhigay gurigooda sees ka soo horjeeda dhagaxna waan u saaray way qiirootay oo damqatay waana ila soo hadashay makiinad baan soo iibsaday makiinadii marka dukaankii ka soo iibsaday waxaan ugu talagalay markaa inaan inanta horteeda aan gacanteeda ku jeexjeexo kadib waxaan ku walaal markaa eeg waa la bixiyay inantii waana la meheriyay waxaan ku walaal anigu marwaadtay waa lagu bixiyay waa lagu meheriyay wax ujeeda oo yama waxdan oo kale maanta inaga dhaxayn kara haba yaraatay ma jiraan balse waxaan doonayaa inaan ku cadeeyo inaan ku jecelayo kaliya makiinadii baan soo qaaday gacantaydan ayaa waxaan sameeyay horteeda ayaan ku jarjaray sidan imika baad arkayso saasan in badan oo dibadda imika muddo ka soo wareegtay xoog baan ugu jarjaray inta markaa waxa sameysay aad bay u damqatay waana dareentay xanuunkii la dareentay jacaylkaygina sidii bay ku ogaatay waxaan go'aansaday maadaama jacaylkaygii laga guursaday calafkii waqtigan la kala kaxeeyay anigu markaa inaan tashado taladaas oo ah inaan ka fogaado meesha ay ku nasaba si aan uga nasto jacaylkii dhibaatadiisa marka inta kadib waxaan sameeyay waan taariibay muddo kadib markaan taariibay waxaan iska tagay halka iyo qurbaha waddanka Sacuudiga laaban tagay halkii baan muddo ku noolaa muddo dheer oo sanado ah oo isugu jiray rafaad iyo murugo badan kadib way saleen lamaanahani waxaanay guul ka gaadheen jacaylkooda maxamuud axmed cabdi oo ku magac dheer boodhari iyo ifraax xasan yuusuf waxay gabadhii curad ee ilaahay ku arsaaqay u bixiyeen nasiib badan waxay ku nool yihiin magaalada Hargeysa waxaana ku booqday hooygooda dhawaana waxa u dhashay ilmo kale bal siday isku heleen ayuu iga sheekeeyay maxamuud boodhari muddadaasi sanadada ah ee ay islaayeen kadib kulli heestu qayb bay ka ahayd guusha saameynteedana way lahayd أنا مدام المرحلة إن أنت تعال كذا كوجل درستي مركي ده ما يصير ملها تن إلهي بكون مقرن مدام بحتاج سكوجين يدي بيرد عضي مركا وحياة معتوين كي صامر حكم هاي ببقى فوق استعل وحدنا مرة والبا دبات عن هذه ما نسوا مد مركا كسر الله مد كلام ما نسوا أو مركي ده ما حن سلقرنا إن يسوي تعريبته إنتوا يسوي تعريبتي ويتمي غير كل ما كدونتي ونسكور سني walaal markii Sacuudiga aanu iskuursanay aanu inantii salay alxamdulillah horta intii dambe wax dhibaato badan maan rag
yacni sidii aan markaan reer noqonnay ilmahayii koowaad baa noo dhashay nasiib badan baan u bixinay kadibna halkii markaanu muddo aanu deganayn waxaanu go'aansanay inaanu waddankii iskaga noqonno lamaanayaal fara badan oo qaarkood ilaa hadda isla yihiin oo xidhiir jacayl wadaagay iyo kuwo hadda ay u qorshaysan tahay inay islaamba waxay labadani lamaane ee wadaagay nolosha jacaylku ay farriin wada jira u direen lamaanayaashaasi iyagoona sheegay in jacaylku ka qaalisan yahay wax kasta oo dunida korkeeda yaalla anigu midda keliyaan aaminsanahay waxay tahay in qof kasta bini aadanka labada qof ee wada sheekaysanaya haddii jacaylkoodu dhab yahay samirna ay ku daraan intay doontada ha gaadhay inay guushooda gaari karaan waxaan leeyahay lamaano kastoo ay jacayl wadaaga aakhirka inaysaan isilayaan qofka muuqaalkan daawanaya ee laga yaabo marxaladdan uu hadda ka soo baxay maxamuud ee hadda uu macaankeedii ama nolosha quruxdeedii uu helay uu ku jiro waxay u noqon doontaa farriin fiican oo ay gudbiyeen lamaanahan isjecel waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa